Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena ummadda, channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo, waad mahadsantihiin. Maanta waxaynu joognaa wadanka Sacuudi Arabiya, khaasatan magaalada Riyaad. Qisadani waxay dhacday 2009. Qisada aynu guda galno waxaa jirtay nin la yidhaahdo Cabdulaahi. Cabdulaahi waxa uu jiray 44 sano. Wuxuu lahaa reer, uu shaqaysan jiray. isna waxaa jiray nin la yidhaahdo Axmed wuxuu jiray 26 sano. waa asaliyan waa Sacuudiya labaduba, laakiin waxa uu Axmed ku haystay dukaan meel u dhow guriga Cabdulaahi. labada nin hore ayay iskugu dhaceen. weliba ninka Axmed la yidhaahdo aad ayuu u necbaa Cabdulaahi. waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mida sidii caadadu u ahayd Cabdulaahi aaday shaqadiisii. gurigana wuxuu uga tagay xaaskiisii iyo caruurtiisii. xaaskiisi waxay u baahatay in wax loo soo gado, dukaanka alaab looga soo gado. waxa inuu yeedhay inan yar u dhalay Cabdulaahi. waxa la odhan jiray inanka yar maxamed bay ku tiri hooyo orod dukaanka Axmed waxaad iga soo iibisa alaab. cabaar ka bacdi islaantii inankii yaraa waa weyday, dukaanku aad ayuu ugu dhowaa. wax yar ka bacdina waxa yimi Cabdulaahi. waxa ayna ku tiri inankii yaraa waxaan u diray dukaanka Axmed, sidaa la ajligeed ma soo noqon. Axmed aad ayuu u cadhooday. maxaad ugu dirtay? waayo ninkan waxa loo haystay falal kufsi iyo dilal ah. waa Axmede ka waxaa loo haystay. waxa dhacday inuu soo orday dukaankii buu gargaraacay. dukaanku waa furan yahay laakiin cidima dhex joogto. markaa waxa dhacday in dukaanka ay biro ku xidhan yihiin, gudaha looma geli karo. oo yani dukaamada waa la iska garanaya, dukaamada shabaag iyo waxaasaa ku xidhan. waxa dhacday in Axmed cabaar ka bacdi markuu qayladii maqlay uu soo baxay isagoo oo naxsan. wuxuuna ka soo baxay meel stoora alaabta uu ku kaydsan jiray, seexana jiray. waxa dhacday in Cabdulaahi yidhaahdo mee inankaygii. wuxuu yidhi inankaaga ayaad weydiinaysa, anigu inankaaga miyaan ogahay? war inankaygii mee waa ti laguu soo diray? ma garanayuu yidhi. iga fur buu yidhi albaabka. Axmed waa furay albaabkii. Cabdulaahi sidii usii ordayay meeshuu ka soo baxay ee cabaarka dhan ku maqnaa ayuu galay. wuxuu u tagay, wuxuu arkay wax argagax leh. wuxuu arkay inankiisii yaraa ee Maxamed oo ceejo xadhig lagu ceejiyey, meydana halkaa yaala. cadhadii markuu isiri saa u soo jeeso, ninkan Axmed mar hore ayuuba diyaar garoobay. wuxuu gacmaha ku sitaa budhkiibuu soo qaaday. Cabdulaahi ilaa uu ka dhacayay waa la dhacayay. kabacdi wuxuu isiri maanta waa lagu qabtay, waa inaad carartaa kana tagtaa magaalada. dukaankiibuu sii qafilay. Axmed wuu tegey. Cabdulaahi markaa ma dhiman, imindha nabaro xoog waa ku dhaceen, laakiin waa soo gurguurtay. wuxuuna yimi dhankii albaabka. wuxuu isiri iska fur. albaabka korka ayuu ka xidhnaa. cabaar buu qayliyey. dad wadada marayana waa maqleen. dadkii waxay u yeedheen booliiska markuu saa meesha usoo gaadhay ee la jebiyeyba, Cabdulaahi nafti waa ka baxday. islaantii waa yaaban tahay. inankii yaraa waa dirtay, kuguma soo noqon. odaygiioo baaditoon tegay ma soo noqon. waxa dhacday in iyadiina dhinacii soo aado dukaanka oo bal ay istiraahdo bal hadda eeg wixii dhacay oo inankaagii iyo odaygii inay bal hadda odaygii helay inankii. waxa dhacday islaantii markii ay dukaankii soo gaadhay, xirtay dukaankii lagu urursan yahay. waa eegtay waayo qofka lagu urursan yahay. booliskii baa u yeedhay. waxay dhaheen kaalay yaa tahay? waxay tii inankaygi baan saaka waayey. odaygayga waxa loodhan jiray Cabdulaahi. isna wuu doonitaan tegey. markaa waa waayey, labadiiba ma garanayo meelay aadeen. waxa dhacday in ay dariska u sheegeen in ninkan la dilay uu yahay odaygeedii. islaantii qaylo qaracan waaba shogto. waa dhacday. waxa la geeyay dhakhtarka. inta loogu yeedhay heladeedii weli ma oga in inankeediina la dilay. waxa dhacday markaysa u meersatay banata inankaygii mee. waxa loogu jawaabay in isna inankeedii dhintay. aad ayay u murugootay. dee laydinkama sheekaynayo. xasbi allah wa nicma alwakiil. waxa dhacday in Axmed baadidoon la galay. waxay qaadatay 7 casho in Axmed la baadi doono. taleefankiisi waa xidhay, lama garanayo meeluu joogo. maalinkii 7aad ayuu furay taleefankii. taleefanka wuxuu kala hadlay markaa sida ay boolisku sheegeen iyo shirkadaha isgaarsiintu 2 nin oo Yamaniyiina oo dadka tahriibiya oo u kala shaqeeya xadka u dhexeeya Sacuudiga iyo Yaman.
ninkan wuxuu doonayaa inuu ka tallaabo Yaman sidaana uu ku badbaado. Waxa dhacday in taleefanka halkii uu ka isticmaalayay la ogaaday waana la aaday. Meeshan waxa weeye gurigan xaafaday u badan yihiin dadka tahriibayaasha ah waliba dadka Bakistaaniyiinta ah. Gurigan waxa degan dad iskaabulo ah. Waxa dhacday in Axmed uu garhka iska xiiray xidho dhar Bakistaaniya sida lagu gartaa waa adag tahay markaa, laakiin booliskii waxa ay qabteen dadkii meesha joogay oo dhan, mid dambi geystay iyo mid aan geysan, si Axmed looga soo dhex saaro. Waa la qabtay ka bacdi Axmed waa laga soo dhex saaray waxaana lagu xukumay 2009 in daldalaad lagu daldalo isla xaafadii uu dilka ka geystay, halkii ayaana lagu dilay. Waxa dhacday in maalmo sanado kadib nin kusoo galay wadanka sharci oo laakiin aan Sacuudiyaan ahayn uu dukaankii iibsado oo la wareego. Dadkii xaafadii sas ayay dukaankii sas ayay ka qaadeen. Markuu yidhahdo maxaa dukaankii saska uga qaadaana waxay leeyihiin dilkii ka dhacay ayaan ogeyn. Waxa dhacday in uu dukaankii ninkii magacii ka bedelay uu bixiyay suuq shahiideyn oo ah suuqay ku shahiideen labada qof waxa weeye Cabdullaahi iyo inankiisi Maxamede. Halkaa ayay qisadeennii maantana ku eg tahay. Waan rajaynayaa in aad qisada ka heshay. Waxaan kaa codsanayaa channelka inaad subscribe saarto, gambaleelka furato, fiidiyoyadana like saarto, una share garee asxaabtaada iyo familygaaga. Salaamu